magaalada Muqdisho qaar ka mid ah madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kuurada hore ee talaalka qaatay. Soomaaliya ayaa ku biirtay liiska sii kordhaya ee wadamada dhaqaalahoodu u hooseeyo ee ka faa'iideysanaya mashruuca talaalka qaramada midoobay ee COVAX ee ujeedkiisu yahay in talaalku uu meelo badan gaaro. Shixnad ka kooban 300,000 oo kuuro oo talaalka Oxford AstraZeneca ayaa shalay gaartay Muqdisho. Shixnadan oo horudhac ahayd ayaa la siin doonaa shaqaalaha safka hore sida kuwa ka shaqeeya daryeelka caafimaadka, waayeelka iyo dadka halista caafimaad la nool si loo yareeyo dhimashada iyo faafitaanka fayraska corona. guud ahaan Soomaaliya waxay mashruuca COVAX ka heli doontaa talaal ku filan ilaa 20%. Dawladda federaalka ayaa iminka qiimeyn ku sameynaysa sidii talaalka loo qaybin lahaa. Talaalkan ayaa ku soo beegmay sanad kadib markii maanta oo kale Soomaaliya laga helay lagana diiwaangeliyay kiiskii ugu horeeyay ee fayraska corona. Ilaa xilliga dawladda waxa ay xaqiijisay in 349 qof ay fayraska u dhinteen. Haddaba dadweynaha sidee bay u arkaan talaalkan? BBC-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho. waxaan filayaa inuu muhiim yahay Soomaaliduna ay qaataan. waa talaal COVID-19 looga hortagayo. COVID-19 Soomaaliya inta badan waa iska ignore gareeyeen, laakiin waxa jira oo reality ah waaye dad badan oo ku dhacay dilay. ra'yi ahaan waxa la jiray talaalkan oo Muqdisho la keenay horta ani ahaanteeda kuma qanacsan oo maxaa yeelay sida oo aan ku maqlay waxa la jiray idaacadaha iyo markino inay soo baaritaan iyo soo mareen oo waxaan maartay ka warqabna maaha. talaalkan inuu xamar imaado faraxsana because xamar talaalkii iyo waxa ku batay cudurka corona marka insha Allah ilaahayna naga hayo cudurkaas aniga ahaanteed dilidilaa talaalkaas ma qaadan lahayd waa qaadan lahaa. anigu waxaan leeyahay waa lagu degdegay arintaas sababtoo ah talaalkan waxa waaye si dadku la sheegayo ama la wada og yahayba wadamo badan oo Yurub laga diiday oo ah wadamadii qarashka badan ku bixinayay. dhanka kale magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland waxaa maanta gaaray shixnad ka mid ah talaalka COVAX ee qaramada midoobay. wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. duhurkii maanta ayay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa diyaaradda siday dawada xanuunka COVID-19. waa 65,000 oo doos oo loogu talagalay wejiga hore in lagu talaalo shaqaalaha dawladda. gaar ahaan wasiirka wasaaradda caafimaadka oo aan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha inta badan la kulma dadka adeegyada bixiya ay ku talaali doonaan. waxa ku xigi doona sida wasiirku uu sheegay dadka jilicdasan iyadoo dawooyin kalena ay iman doonaan. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in aanay waxba ka jirin dhaliilo ay dad badan u soo jeedinayaan talaalka iyo in uu saameyn xanuuna uu keenayo. xaaladda xanuunka COVID-19 ayaa muddooyinkan dambeysay aad uga sii daraysa dhammaan gobollada Somaliland iyadoo dhimashada dadkuna ay siyaadayso. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. ololaha talaalka fayraska corona ayaynu weli ku jirnay waxa uu ka socdaa guud ahaan qaaradda Afrika. wadamada qaarkood waxay durbaba ka heleen barnaamijka COVAX ee ururka caafimaadka adduunka oo doonaya ilaa 2 bilyan oo talaal in la gaarsiiyo dunida ilaa dhamaadka sanadkan. 600 milyan oo ka mid ah ayaa loogu talagalay qaaradda Afrika, taas oo ku filan in lagu talaalo ku dhawaad 20% guud ahaan qaaradda. waxa sii kordhaya tirada dalalka horeba u bilaabay qaybinta talaalka. in ka badan kala bar wadamada ayaa iyagu iminka helaya qaybo ka mid ah talaalka. inta badan dalalka Afrikaanka ah waxa ay isticmaalayaan talaalka Oxford AstraZeneca, inkastoo dalal badan oo Yurub ay joojiyeen isticmaalka talaalkaasi sababo la xiriira xinjirowga dhiigga oo la sheegay in uu talaalkan ka dhashay. hay'adda caafimaadka adduunkana waxa ay sheegaysaa kuna adkaysanaysaa inaysan jirin wax caddayn ah oo arrintan la xiriirta. hay'adda la socota daawooyinka Yurubna waxay sidoo kale iyana sheegaysaa in faa'iidooyinka talaalka uu leeyahay ay aad uga badan yihiin halista, inkastoo ay ku baaqayaan kulan aan caadi ahayn oo khamiista la isugu yimaado haddii loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah. waa inaan marka hore sharaxaad ka bixiyaa in xaaladan oo kale aysan ahayn wax lama filaan ah. markaad tallaasho malaayiin qof waa lama huraan inaad arkaysa dhacdooyin dhif iyo naadir ah oo xanuuno ah oo dhaca tallaalka kadib. kaalinteena yeemiye ahaan waa inaan qiimaynaa kuwan si loo hubiyo falcelin kasta oo looga shakiyo. si dhaqso ah ayaa loo baaraa si aan u ogaano tan ma waxyeelo la xiriira tallaalka
mise waa wax iska yimid. madaxa tallaalka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inuusan doonayn waddamada afrika in ay ka aamin baxaan tallaalka AstraZeneca. Dr. Richard Mahigo oo la hadlay BBC da waxa uu sheegay in hakinta ay waddamada dalalka Yurub ay abuurayso walaac ku aadan daawo la cadeeyay inay ammaan tahay. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa dib iyo u dhigtay bilowga barnaamijkeeda tallaalka sababo la xiriira cabsi laga qabo xinjirowga dhiigga. dowladaha Afrika waxa ay inta badan dalbadeen tallaalka AstraZeneca maadaama uu ka qiimo ahaan jaban yahay isla markaana marka loo eego tallaalada kale ay fududahay in la kaydiyo. haddaba si aan wax badan uga ogaano tallaalkan sida loo qeybiyey Soomaaliya iyo arrimo kale waxaa qadka magaalada Muqdisho toos ugu jira Dr. Maxamed Maxamuud Fuje. Doctore soo dhawow tallaalkii qaybintiisii Muqdisho maanta waad ka bilowdeen marka bal muuqaal waxaad naga siisaa sida 300,000 oo kuuro loo qaybin doono iyo muhiimadda ay idin leedahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الماسنتين تلامكي هل سنة كدب أيام باللوني كيسوه الرئيس لقاها روحها لحية ممكن مارس لو كنا لغاتي ما أنت نوع لحية ممكن مارس إلا ممكن لغاتي أنت أسمع الجريت اللي سوودي ما واحد قصة بيري تلالك سدح بقول كل تلالك إشليون وسدح بقول كل الصومالي ولا لا هاي مقدسو qaarkeed waa loo reebay kuwii kalena goboladii ahayd waa loo bilaabay marka ma aha kaliya wax muqdisho ilaa waxaase maanta mudnaanta koowaad la siiyay tallaalka madaxda ka sokow shaqaalaha caafimaadka oo dhifista koowaad ugu jiray charity inay la dagaalamaan cudurka marka waan gartay sidaas ku dhaqan marka doctor 300,000 oo kuura ayaa soo gaartay magaalada marka say u kala gaaraysaa tiradaas Soomaaliya mid yar 600 kuwa kala qeybay xamar waxba loo reebay joohar waxba la geeyay hargeysa waxba la geeyay garow waxba la geeyay baydhabo waxba la mar 600 kuwa sidaas u kala qaybsantaa 600 kuna maahane oo ku soo xigay doonta Soomaaliya 1.2 bilyan ay leedahay markay yimaadaan ayada sidaan wadayna waase kala hormarinayna dadka kala mudan waata goorma la filayaa marka qaybaha kale inay soo gaaraan iyana mar alle markii inta kale uu socdo ayaa jeenayna inuu soo gaarto Afrikaan kala midnahay maalinba qaybaha la soo diri doono mar alle markii noo timaadana horaan ka qaybinayna waata talaalka idin soo gaaray waa Oxford AstraZeneca sababaha dalalka Afrika u dalbadeenna waa sababo la xiriira kaydinta iyo qiimaha walaaca oo ay dadka qaar oo Yurub ay ka muujiyeen marka adinka maxay idin la tahay taas naga sideedaba sheegtay waa Oxford AstraZeneca annaga tallaalka la soo gaaray tallaalkaasna waxaan aaminsanahay annaga inuu badqab yahay ummadaha dhan uu yahay waddankeena uu ku habboon yahay maadaama temperature-ka rabo inuu kaydiyo ay taakii hore loo yaalay sida loo isticmaalay in taakii shaqaaluhu awal hore u yaqaaneen oo tallaalka la isku duro ah intaas waa haysanaa annaga Yurub waxa ay sheegeen hadii waa sida la sheegay xadif iyo naadira oo marmar iska dhici kar sheegay annaguna kaas da lecture u sameeyay sababtoo ah donation waa naloo soo hibeeyay waa waxtar weeye 12 milyan oo dad lagu darana 37 qof kaliya la yiraahdo waxaas ka marka taas uu joojin waddan وما سنتهي دكتور محمد فوجي بل مركنا aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa